89.9 megahertz. Gurceel iyo Dhuusamareeb 89.5 megahertz. si aad u hesho macluumaad ku saabsan deegaankaaga, gobolkaaga iyo guud ahaan geyiga, geyso mawjadda Star FM oo la soco warar hufan, barnaamijyo tayaysan iyo xogo ku xiisa geliya. Star FM idaacadaada. habeen wanaagsan dhageystayaal, halkani waa Star FM stuudiyaha Muqdisho ku soo dhawaada warka habeen. qodobada aan caawa idiin haynana waxaa ugu waaweyn kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Jubbaland oo ka furmay magaalada Kismaayo, dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay duqeyn ku dileen amaaduulihii ciidamada ururka Al-Shabaab, madaxweynaha maamulka Jubbaland oo sheegay in dowladda dhexe iyo Al-Shabaab aanay waxba isdhaamin, coronavirus oo laga helay gobolka Soomaalidu ku badan tahay ee Minnesota, ururka AMISOM oo agab ciidan ku wareejiyay taliska booliiska maamulka goboleedka Hirshabeelle, Puntland oo sharaxaad ka bixisay shirweynaha uu iclaamiyay madaxweynaha maamulkaasi, ururka Midowga Afrika oo Kenya iyo Soomaaliya ugu baaqay inay ilaaliyaan khilaafka ka dhaxeeya, iyo qodobada dibadda oo idinkugu hayo dowladda Itoobiya oo la soo baxday safiiradii u fadhiyay 8 dal oo caalamka ah sababo la xiriira faafitaanka corona. habeen wanaagsan, ismaqal wanaagsan dhageystayaal. waa habeen ay sabdisii baxayso axad ayaa soo galaysa 7 bisha 3 ee Maarso sanadka 2020. warka habeen Maxamed Abubakar ayaa farsameynaya, Cabdixafiid Nuur ayaa idinla socodsiinaya. u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan. aan ku bilaabo magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland kumeel gaarka oo ah waxaa maanta ka furmay kalfadhiga labaad ee baarlamaanka maamulkaasi Jubbaland, isagoo uu daahfuray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe. Maandeeq Xuseen Ibraahim ayaa warkan ka soo dirtay Kismaayo. madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta daafuray munaasabada furitaanka kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka Jubbaland oo maanta ka dhacday xarunta daawad ee magaalada Kismaayo. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay maamulka Jubbaland oo warkacayay madaxweynaha Jubbaland, ururada bulshada qaybaheeda kala gedisan iyo marti sharaf kale. munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha golaha baarlamaanka Jubbaland mudane Cabdiraxmaan Maxamed. dowladda federaalka annaga ka tirsan, annaga iskale Soomaali baan nahay, xilka ruuxii rabaa loo dhiiban karaa. marka waxaan u sheegaynaa madaxda dowladda federaalka ugu horeeyo madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. madaxweyne waxaan ku leenahay sharci baa lagu doortay, sharci baa lagu tegi doontaa, laakiin ceeb iyo wax biddaad ugu samaynayo ummaddaas ha ugu tegin. annaga Soomaali baan nahay. ugu dambeyn munaasabada ayaa waxaa soo xiray madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe.
inuu yahay dowladgoboleedyada kuwa ugu miisaanka culus xagga tabada beeraha iyo xoolaha iyo dadka iyo inta jinsiga yani soomaalida kala duwanaanshaha jinsigu waa kala duwanaan laakiin siday soomaalidu ugu wada dhinta sidaa daraaddeed waxaan garan karaa mar walba culayska jubbaland ama ka bixi karaan ku jiri karaan waa mid matalaada soomaalida la haysta ee ma aha mid ama qoys ama waalid gooluga dowlad goboleedka jubbaland waa garanaysaa jirta aasaaskiisa ugu horreeyey markii maandeeq xuseen ibraahim warbaahinta haysta magaalada Kismaayo. way maasan tahay maadeeq xuseen ibraahim. ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay dileen iyagoo kaashanaya ciidamada Mareykanka ee Africom Bashiir Maxamed Qoorgaab oo ahaa abaanduulihii ururka Al-Shabaab. qoraal ay soo saareen ciidamada xoogga dalka laguna baahiyay warbaahinta dawladda ayaa lagu sheegay in Bashiir Qoorgaab lagu dilay duqeyn ka dhacday degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe 22 Febraayo. qoraalka ciidamada xoogga dalka ayaa lagu sheegay in Bashiir Qoorgaab uu sidoo kale ahaa madaxii howlgallada Al-Shabaab iyo Kenya iyo xubin ka mid ah golaha fulinta Al-Shabaab uuna sidoo kale mas'uul ka ahaa weerarada xeryaha ciidamada. saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in dilka Bashiir Qoorgaab ay ku suurta gashay iskaashi ay sameeyeen sirdoonka ciidanka xoogga dalka iyo kantaliska ciidamada Mareykanka Afrika ee loo yaqaano Africom. ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta sheegashada ciidanka xoogga dalka Africom dhankooda weli ma aysan shaacin inay dileen Bashiir Qoorgaab. hase yeeshee waxaa jiray qoraal ay soo saareen 25 Febraayo oo ay ku sheegeen in duqeyn ay fuliyeen 22 Febraayo ee lagu dilay hogaamiye ka tirsan Al-Shabaab oo mas'uul ka ahaa weerarkii saldhigga Mandabay ee Kenya iyo xaaskiisa oo sidoo kale xubin ka ahayd ururka Al-Shabaab. waxa uu ahaa hogaamiye ka tirsan Al-Shabaab oo mas'uul ka ahaa qorsheynta iyo agaasinka howlgallada argagixiso ee xuduudda Kenya oo ku jira howlgalkii lagu weeraray saldhigga ciidamada Mareykanka ee Mandabay ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Africom. qoraalkaas laguma shaacin magacyada dadka la dilay waxaana lagu muujiyay in hogaamiyaha la dilay uu xil sare ka hayay Al-Shabaab. warka ku saabsan dilka Qoorgaab ayaa imaanaya iyadoo sirdoonka Soomaaliya ay dhowaan shaaciyeen in laga qaaday xilkii uu u hayay ururka Al-Shabaab. markaana haddii aan dib ugu laabanno wararka maamul goboleedka Jubbaland madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo sidii warkii maandeeq ku jiray magaalada Kismaayo waa kalfadhiga labaad ee baarlamaanka maamulkaasi Jubbaland ayaa waxa uu eedeymo kulul u jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya isagoo dhinacyo badan ka hadlay isla markaana soo hadal qaaday ciidamada la geeyay deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland sida gobolka Gedo ayaa waxa uu dawladda dhexe ku eedeeyay in ay la shaqeyso ururka Al-Shabaab ama waxa uu sheegay in aanay waxba isdhaamin Al-Shabaab iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho ka arrimaysa. Saddam Maxamed Daahir ayaa inoo haya. maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ka hadlayay xiriirka maamulkiisa kala dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu madaxweyne Axmed Madoobe ku eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya in ay ku tumatay dastuurka dalka waxaana uu sidoo kale tilmaamay in dawladda federaalka Soomaaliya iyo Al-Shabaab aysan jirin wax farqi ah oo u dhaxeeya taas oo uu cuskaday sida dawladda federaalka Soomaaliya ay ula dhaqantay maamulka Jubbaland iyo hogaamiyaasha ururka Ahlus Sunna wal Jamaa. dawladana hadda timid maxaa isbedelay waxaa jira 2009 markaan shabaabka ismaynay hadal aan dhibaa jira shabaabku qof kasta oo diin lahaa culimo ahaa xurmad shacabka dhexdiisa ku lahaa iyaga wax ka ahaa hebelow mana raacaysaa maya murtad baata waxaa lagu ridaynaya waxay tahay masaalixdoodii buu ka horiyey soo maaha waxaan u bixinay takfiir bilmaslaxa waa takfiir ama riddo ku saabsan maslaxadooda maanta dawladda federaalka ee jirtay 8 February maxay noqotay haddii sida ay rabto
riyadeeda oo ma anzalnaa bihim suldaana xuluma aad ka hor timaado khaa'inul waddan baa tahay camiil baa tahay dad kale aad u shaqaysaa iyagiyo takfiir shabaabka maanta maxay kala duwan laa farqa bayna wax farqiga oo maanta u dhaxeeya dowladda federaalka iyo shabaab haba yaraatee ma jiro kuwana way gaalaysiiyaan kuwana soomaalida ka saaraan wax u dhaxeeya miyaa jira labadaasay noqotay waxa meesha u yaalla waxay is hortaageen oy joojiyeen shabaabkii dagaalankiisii waxaan odhan karaa iyagiyo shabaabku mar hadday akhlaaqiyan xagga dhaqanka isaga egyihiin waxyaalo badan oo heshiisiyo xidhiidhareeri jireen maanta waxay joojiyeen shabaab dagaalkiisa oo ay noqotay dadka shabaabka la dagaalamaya dowladda iyo shabaabku inay hal cod u wada yihiin oo cadaawad keliya oo meel wada taalla ay tahay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo sii hadlayay ayaa soo hadal qaaday dagaalkii ka dhacay gobolka Gado waxaana uu dawladda federaalka Soomaaliya uu ka dalbaday in ciidamada ay geysay gobolka Gado ay kala baxdo halkaasi isla markaana ay u diyaar garowdo wada hadal nabadeed oo u dhaxeeya Jubbaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya dawladda federaalka waxa leeyahay dawlad federaal oo maxaa Abdullaahi Farmaajo madaxweynihii baa tahay kaaleen wada hadal miisa wada fadhiisano dastuurku wuxuu ku siiyay qaado wuxuuna siiyana aan qaadan haddii intaa la waayo dee cidina kala xukuntaan raadinayna haddii la waayo dadku siyaalo kale u tashan doonaan haddii la hayna madaxweyne Axmed Madoobe ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ka taageero dhanka ciidamada ugu baaqay in ay joojiyaan taageerada ay siiyaan dawladda federaalka Soomaaliya oo ku eedeeyay in taageeradaas loo adeegsado dhibaateynta shacabka sida uu hadalka u dhigay ciidamadan la soo tababarayana qadarayna lacagtaad bixinaysa nagada ay dhibaatada waddanka ku ah turkiyana waxaa tababaraysa joojiya shacabka Soomaaliya taariikh bay u gelin doontaa Ethiopia waxaan leenahay saraakiishaada dhaqanka xun ee socota jooji war qof waliba ha naga daayo waxa la lagu hayo shacabka lagu qof waliba ha qaato eedda uu ku leeyahay meesha waxa ka jira dhammaan eedahan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Madoobe uu u jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli toddobaadkii hore dagaal khasaare badan geystay uu ka dhacay degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado kaas oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamo ka amar qaata maamulka Jubbaland oo uu harkacayo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas iyo wasiirka amniga ee Jubbaland ومحسن يا سيدنا محمد داهر مركان هادي أن أدنو ديغانة مامل كهير شبيلة ururka amisom ee ka howlgala deegaanada maamulka Hirshabeelle ayaa waxay agab ciidan ku wareejiyeen taliska booliiska maamul goboleedka Hirshabeelle ee ku sugan deegaanada maamulkaasi Maxamed Abubakar Cabdi Xasan ayaa warkan faahfaahinaya taliyaha ciidamada booliiska maamulka Hirshabeelle Xasan Dhicisow Xasan ayaa kala wareegay agab ciidan taliyaha booliiska amisom ee deegaanada Hirshabeelle munaasabad agabkaasi uu kula wareegayay taliska ciidamada booliiska Hirshabeelle ayaa ugu horeen waxa ka hadlay taliska booliiska amisom ee deegaanada Hirshabeelle waxa uu sheegay in agabkan ay ugu tala galeen ciidamada booliiska Hirshabeelle waxa ayna ka kooban yihiin budad qalimaan buugag iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah howlaha booliiska waxaana agabkan hadda ku howlgala saldhigyada booliiska degmooyinka Jowhar Balcad Warshiiq iyo Cadalle oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe kuwa kalena dhawaan ay soo gaarsiin doonaan taliyaha ciidamada booliiska maamulka Hirshabeelle Korneyl Xasan Dhicisow Xasan ayaa ugu mahad celiyay amisom agabkan ay soo gaarsiiyeen waxa uu hadalkiisa intaa raaciyay in howlaha booliiska ay meel wanaagsan marayaan isla markaana dufcadii saddexaad dhawaan tababar loo soo xiri doono mahsanid Maxamed Abubakar Cabdi Xasan maxkamadda ciidamada Jubbaland ayaa maanta xukun dil ah ku riday askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka askarigan ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 43aad ee ka howlgala maamulka Jubbaland gaar ahaan gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya ayaa askari dilka lagu xukumay ayaa lagu magacaabo Bila Khaliif Xuseen waxaana lagu eedeeyay in 5tii bishan uu Kismaayo ku dilay askari kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka marxuumka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Aadan Dhicis Axmed wuxuuna maalintii Khamiista dilkiisu ka dhacay xaafadda Farjano ee magaalada Kismaayo garsooraha maxkamadda ciidamada Jubbaland Bashiir Maxamuud Xareed oo ku dhawaaqay xukunkaasi ayaa dil toogasho ah ku xukumay askariga taasoo ah
khisaasta marxuumka horey loo dilay iyadoona lagu khisaasay xukunkii oo geystay. dalka Mareykanka haddii aan aadnana gobolka ay Soomaalidu degto ee Minnesota ayaa waxaa la soo sheegayaa in uu gaaray xanuunka coronavirus iyadoo laga cabsi qabo halkaasi inuu ku sii faafo. sidoo kale culimada masaajidada ee gobolka Minnesota iyo guud ahaanba Mareykanka ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in dadku aysan masaajidada soo aadin oo dhawaan ay masaajidada xiri doonaan. Cali Maxamed Cali ayaa warkan faahfaahinaya. kiiskii ugu horreeyay qof uu ku dhacay cudurka coronavirus ayaa laga helay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ee Soomaalidu ay ku badan tahay. waxaana jira hal kiis oo la xaqiijiyay oo ah cudurka coronavirus ama loo yaqaano COVID-19 oo laga helay gobolka Minnesota. sidaasina waxaa warbaahinta u sheegay sargaal ka tirsan waaxda caafimaadka ee gobolkaasi. qofka kiiska laga helay waa nin da' ah oo degan degmada lagu magacaabo Ramsey. bukaanka ayaa la sheegay in lagu karantiilay guriga uu degan yahay isla markaana xaaladiisu ay soo wanaagsanaanayso. waaxda caafimaadka gobolka Minnesota waxa ay sheegtay in weli sugayaan xaqiijinta natiijada baaritaanka loo yaqaano CDC isla markaana saraakiisha caafimaadka ay tixgelinayaan natiijada ka soo baxda baaritaanka. tirada dadka laga helay cudurka dunida ku sii faafaya ee coronavirus ayaa kor u dhaaftay 100,000 oo qof sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins ee saldhigeedu yahay dalka Mareykanka. dhanka kale cudurka waxaa gudaha dalka Shiinaha ugu geeriyooday dad ka badan 3,000 oo qof halka wadamada kale ee caalamka ay u dhinteen cudurkan dad tiradoodu ay gaarayso 267 qof oo badankooda ku geeriyooday dalalka Iran iyo Talyaaniga. halka dalka Mareykanka dadka cudurka coronavirus u geeriyooday tiradoodu ay gaarayso 12 qof. oo maasan yahay Cali Maxamed Cali. qaybihii dambe ee warka ayaan isla soo gaarnay. markaana haddii aan aadno qodobka dibadda ee la wareegay diblomaasiyad ayaa xaqiijinaya in dowladda Itoobiya ay u yeertay qaar badan oo ka mid ah safiiradeeda u fadhiya wadamada caalamka sabab aan ilaa iyo hadda la shaacin. telefishinka Al Jazeera ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ay la baxday safiiradii ka fadhiyay ilaa iyo 8 dowladood oo isugu jira Yurub iyo Afrika. dowladaha ay Itoobiya safiiradii kala soo baxday ayaa waxaa ka mid ah Suudaan, Maqrib ama Morocco, Belgiumka iyo Ingiriiska. wargeys maxalli ah oo Itoobiya ka soo baxa ayaa sheegay in xukuumadda Addis Ababa ay ka carootay mawaaqifta ay dowladahaasi ka qaateen khilaafka ka dhashay biyo xireenka ay ka sameynayso webiga Nile. wararka ayaa intaas ku daraya in maalintii Arbacada ay Itoobiya la soo baxday safiiradii ka fadhiyay wadamada koonfurta Suudaan iyo Australia. diblomaasiyiin ayaa sheegaya in Itoobiya ay si adag uga carootay dowladaha Ingiriiska iyo Belgiumka oo la saftay dowladda Masar kuna baaqay in Itoobiya cadayso waxa ay ka damacsan tahay biyo xireenka ay ka dhisayso webiga Nile. go'aanka carada leh ee Itoobiya qaadatay ayaa yimid maalin kadib markii wasiirada arrimaha dibadda dowladaha ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ay taageereen dadaalada ay wadaan Suudaan iyo Masar ee ka dhanka ah biyo xireenka Nile. dowladda Itoobiya ayaa asbuucii la soo dhaafay iska diiday in ay ka qayb gasho shirar ka dhici lahaa magaalada Washington ee Mareykanka oo uu ku dhexdhexaadin lahaa 3 dowladood oo isku khilaafsan qaybsiga kheyraadka biyaha webiga Nile. dhegeystayaal warka habeen oo kala socoteen Star FM studio-ha Muqdisho caawa waa naga intaas. warkankiisa xiga inta aan ku kulmi doono waa dhammaantan oo dhammaantiin idin le nabadgelyo. jiritaanka nolosha ee noolo walba waxaa muhiim u ah helidda nabad sal adag leh oo uu ku noolaado. marka sal loo yimaado aadmiga oo ah kan ugu wanaagsan ee sankuneeflaha uunka waa kan ugu sii mudan inuu helo nabad waarta. waa tan afmaalkii hore ee Soomaalidu ay horay u yiraahdeen nabaddu waa hoyga baraaraha iyo gunta barwaaqada. mid kalaasa ka daba timid oo tiri